بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحباب في الله، halka waxaan kusoo gudbinayaa maase ku socda shacabka reer Puntland. waxayna ka hadlaysaa saddexda dhardhaar ee xaaraanta ah ee waxa weeye runtii dhigmiratada ah ee waxa weeye ku mamay dhiiga dadka iyo dhaca dadka. walaalayaal sida had ogtiin hadda waxa ka taagan magaalada Boosaaso waxa weeye dhacdo aad iyo aad u xanuun badan. ciidamo wiilal Soomaaliyeed waliba reer Puntland ayaa isku hor fadhiya oo laga yaabo qaarkood inay walaalo yihiin ayaa isku hor fadhiya oo la doonayo dhigooda in lagu daadiyo. waxaad ogeydeen Axmed Garaash xilliga ka horeysay in muddo garow la isku hor fadhiyay. waxaad ogeydeen Dhoobo Daareed, waxaad ogeydeen galankan hadda wasiirka ah. waxaad ogtihiin ma garanaysaa maxaa ku dhahay dhibaatada ay ku hayaan qarannimada Soomaaliyeed iyo inta ay waxa weeye ilaa iyo SSDF sida ay ummadda Soomaaliyeed nimankaasi u dhibaateynayaan. waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed meelaha uga soo wada jeesato. haddaba ayaan darro waxa ah Puntland waxaa lagu tilmaamaa xarunta dhaqanka Soomaaliyeed ayaa lagu tilmaamaa. haddaba dhaqanka iyo maxaa ku dhahday iyo dhardhaaradan miyay wada shaqaystaan? waa su-aal isweydiin leh. waxaad ka heli doontaan maansada sii gudbiya markaa idin soo gaadho. waana tan saddexdii dhardhaar ee dhuuniqaatayaashiyo dhigmeeratada iyo dhidarrada insaanka iyo dhurwaayadu lahaayeen dhacamaatadoodiyo dhibaatada Puntlandtal dheefta u ahayd ee sukeeyaha dhibaya dhiiggii cabaayo hadba meel u dhacayo ruuxii ka dhiidhiya dhibaataynta shacabkay dhufayska u galaano dhoylaawayaashiyo dhoohanaha liitee dhimirkaan lahayn bay ka dhigteen ilaalo hadba dhowr ku kiciyaan. guddoonshihii dhabta ahaa markii Dhoobo Daareed golihii dhexdiisii dhalintii ilaalada habeen loogu soo dhacay dhowrkiiba lagu dilay laga dhigay xilkiisii ku dhiirada hujuumko dhowr beri gadaasheed Garaash loo dhaqaaqiyo dharaaraa la maago dhicisow shirqoolkii. maantana nin dhamaco dhiiran oo haliyeeyo ka dhiidhiyey xumaanta xilka dhiib la yiriyo loo galay dhufayske. saddexdii dhardhaare dhacay maatadeenne dhiigmiiradka ahaa xaruntii dhaqaalaha hore ay u dhababeen shisheeyaha u dhiibteen dhiiliyo colaad bay ka dhigeen hadeero dhufaysyaa la galayo waxa ay ku dhaarteen dhiiliyo colaad bay ka dhigeen hadeero dhufaysyaa la galayo waxa ay ku dhaarteen dhibaatooyinkoodii kii ka dhaga adayge dhibsadee xaldoonka ah ninka dhiiran oo idil ka dhiidhiya xumaante dhowrtaan dadweynuhu haddii aanu dhiibayn xilka uga dhaqaaqayn. intay dhiig ka daadshaan inay dhabarka jebiyaan dhafoorkana ka toogtaan dhaqankooda weeye. kuwii aan dhacayne loo dhaarshay gacalkee lagu sheegay dhaqankii markii ay dhawaaqaan dhiig laga dareemaba dhaqaalaha la siiyaa dhoylaa wadani iyo dhowrkaa la joogaa dhambaal sahan ku soo helay waxay kala dhantaaleen odayaasha dhaqanko. nimankii dhawaaqee dhufasyada la qodayo dhibta joojiyaa yidhi nin kastaba dhaqaaliyo dhowr kun baa la siiyo dhallaankiina haysto dherga oo shaqaysto waxaan dhacayno odayaal ka furaysta dhegahoo dhankayaga difaaco dhibaataynta shacabkiyo dhawaaqa dadweynaha ha u dhaga nuglaanina dhowr goorba lagu yidhi intay sida dhurwaagii dhutiyaan habeenko dhadhamada ka qaateen ka dhaqaajo dabadeed ku dhawaaqe goortaa kay shalay dhaliileen inay dhinac istaageen dhambaalana u soo dire dhacdo weeye yaab leh sidii awr la dhaansaday la dhaqaaqo shilimo kolkaa dhiirigeliyo dhallaankiiyo haweenkiiyo dhibamaatadoodii kuwa dhaqanka sheegtee dhaxlo madaxtinimadee dhabtii soo jireenka weligoodba aan dhicin dadku ay ku dhaataan. dhegtu inuu ilaashiyo dhaqaalaynta maatada loo saaray dhabarkay dhufayska u ahaan jiray maanta waa dhibsidayaal waxa looga soo dhacay dhankoodii xigaalko irbadhuuma geliyaan waa dhuuni raacyo intay dheefta qaataan dhalintiiyo haweenkiyo shacabkay dhibaano intay dhuuhateeyaan gacalkay ka dhuntaan. inay dhimanayaanoo dhamaciyo kulayliyo dhaxlayaan cadaabo dhadhamada ay qaateen dhunkaal ay ku noqonoo sunta dheefsan doonaan dhibirkooda may gelin. inna lilaahi wa inna ilaahi raajicuun. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.